bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan walaalahay igu jiro youtube-kayga waxaan idin leeyahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waxaan cawada isoo booqday walaalahayga maasha allah abwaanada faadimo warsan maasha allah walaashay ayaan luula maasha allah waa idin salaam asxaabta soo kulli dhawaada idin leeyahay gurigayga igu imaaday way isoo booqdeen maasha allah kusoo dhawaada gurigayga waa dhowna youtube-kayga maasha allah asxaabtaadan waa salaameynaa kulli maasha allah haya bwan maasha allah tabaaraka allah waxaan leeyahay dhammaan inta ku jirto channelka maxaan ku rahdayaa caashaladan waxaan leeyahay soo dhawaada caawa waxay nooga shidan tahay gurigii Caisha waana la marti qaaday si kale kuma garatide waa shaaheynaynaa idinkana nagula soo dhawaada waxaan leeyahay insha allah nala shaaheeya biidnillaahi raxmaan walaashay gurigeeda guriga barakaysan oo nimcaysan allah oga dhigo aad baan ugu duceynaynaa biidnillaahi raxmaan hadda wax badanna waa soo wadnaa janalkan iyo janalka ayaan luula waa kala socon doontaan biidnillaahi raxmaan waa isugu tegi doonaa meel walbaba waxaan rabnaa inaan kasoo jawaabno waxa idinka maqnaa iyo fikir idinka maqnaa intaba idinku soo kordhino hadday baraambur noqon lahayd hadday riwaayado noqon lahayd hadday gabayo noqon lahayd wixii idinka maqanba insha allah labadaa janal baa kala socon doontaan ilaahay idinkii ana waa kusoo biiri doonaa mar dhawaana soo socda ay soo dhaweeya si fiican waan soo dhaweena walaashayna waxay leedahay iyada nafteeda youtube maasha allah soo dhawaada ayaan leeyahay youtube-keeda hala booqdo Luula Channel insha allah aye mar adigana hadal maxaa leeyahay haye asxaabta kulli waa idin salaam janalka caasho ku xiran soo dhawaada insha allah caawa caasha marti u nahay gurigeeda aan soo gaarnay caawa barnaamijkan ka hadli doono insha allah biidnillaahi alkariim wuxuu noqon doonaa anaa furaya caawa janalkii caashaladan waxaan leenahay barnaamijkan ka hadlayna waxay tahay saaxiibkii wadankii noo jiray waa hadda halkii iyo Soomaaliya Afrika oo dhan iyo qurbaha saaxiibka joogo Canada Toronto saaxiibka joogo baanu kala qaadaynaa bal labada saaxiib differentka u dhaxeeyo iyo waxa u kala dhaxeeyo dhaqanka iyo nolosha isu soo dhawaashada isjeclaanta isla socodka iska warhaynta intaba maxay ku kala bedelan yihiin waxaad ka ogaan doontaan insha allah biidnillaahi alkariim ayadoo riwaayadna waa dhigi doonaa oon samayn doonaa ayada oo hadda sheekana waa idiin sheegaynaa insha allah oon annagu isugu jawaabi doono ilaahay idinkii haddana baarti wankeedii oo hadal ah ayaa idiin soo jeedinaynaa insha allah biidnillaahi raxmaan saaxiibkii wadanka hadda waa wadankii aan ka nimi ee Soomaaliya iyo kan halkan aad ugu imaateen bal ayaan iyo caashay ka warrama maasha allah walaashay horta kuwa aan wareysanaynaa ayada maadaama ay wadanka naaga soo horeysay waxay kala kulantay aniga saaxiib wadanka baan sheegay saaxiib kuma wala inta saaxiibada lama ahayn inta dadka saaxiibada inta aan ku arkay laba kuwa aan ku qasaaray kuwa aan ku faa'iiday labada way isku jireen sax maasha allah kuwa aan ku qasaaray oo waxba aan ka faa'iidin iyo kuwa aan ku faa'iiday labadaba way intaba way jiraan kuwa aan ku qasaarayna hadda waxay ii noqotay aqoon ii soo korortay laftirkooda waxba ka faa'iideysanaysaa qofka marka wax ka aragtid waad ka cararaysaa waad ka tagaysaa kuwa walaahi ilaa hadda maalintan wadanka imaad ilaa hadda aan weligay waxba iskugu imaano walaalo kale aan hayn way jiraan alxamdulillah kaas waxaa ka dhiganaysaa walaal kula dhashay waayo waxyaalo badan baad ka faa'iideysanaysaa asna waa kuu faa'iideynaya barashadooda eedayna walaahi way jirtaa maxaa u baratay kuwa ay isleedahay talow markaa baranaysay maxaad iskaga dayn weyday barashadooda inaad halkaa iska salaantaan baa lagu qaatay waa jiraan kuwa waxaa jiro maxaan ku dhahdaaye ka adag inay kuu keenaan hadalka xun oo keliya hadalka sanna kaala bakaylo oo aan kula soo raadsanaynin hadalka fiican waayo wuxuu isleeyahay hadalka fiican haddaad u sheegtid abuu kaa faa'iidaa halkaasuu marka wuxuu kuu diidayaa hadalkii fiicnaa oo uu kuu sheegi lahaa aad adiguna ku dhaqmi lahayd ama aad qof kale usii sheegi lahayd buu kaala bakaylayaa kaasina waa saaxiib ma noqdaa waa may ma noqda kaa saaxiib ma galay marna lagama sugaayo kaas booska saaxiib ma istaagno saaxiib lama dhihi karo saaxiibna kuma sheegi karo waxaan ku sheegi karnaa cadow karkaarada ku weydaarinayo labada lugoodna saa isugu kaa dhufto oo keliya unbuu rabaa caasha wax badan waad soo aragtaan u malaynaya halkan aniga saaxiib markii intaan ka arkay ama wax kale waan is ognahay intaa ka aragtay intaa saaxiib ka aragtay ay gacana u taagay kuwa Canada
aad iyo aad special dadkan qurbaha ku nool way kala yihiin anaga hadda Kenya soo marnay dhul badanaa soo marteen meelo badanaa la soo maray wadankeena si loogu soo baxay direct lama soo aadin meesha kuwii Africa ama kuwii meelaha dhexda kuwa dhexda horta waa iska rooyin kuwii Africa cabaan u xoogaa waa isku yara baxbaxeen waa Africa isla tahay moogtahay markaad Soomaaliya kiimato Kenya imaatid weli waxaa taagan tahay dhulkaaga Africa taagan tahay laakiin markaad diyaarad soo raacdo oo airportkii aan ogaa laga soo dejiyo oo maxaan ku dhahdaa barafkii daadsanaana aad soo dhex martid halkan cidda kaaga soo horeysan aad is leedahay talo waa cidma markaad isbaratid lagu soo dhaweeyo ma gabadha South Africa ka timid wallaahi tama iska baranaa talo hadda wuxuu ku baranaya ma aha in wax kuu sheegayo dhibaato dhan hadday timi way cusub tahay hore muxuu saaxiibo ugu yeelo waay bal hadda eeg adiga hortaa saaxiibo muxuu u yeelan waa qofkan waxaa laga yaabaa kun saaxiib inuu soo yeeshay balse meel cidlo uga soo tegay adigu laakiin kama warhaysid miduu ku nasto uu waayaba miduu ku daga waa waay bal adigu muxuu saaxiib kuula noqon waay saaxiib wanaagsanna waa jiraa saaxiib fiicanna waa jiraa saaxiib iska badaayo waxaa jira dad asxaab ah oo maxaan ku idhahdaaye nolol wada qaybsanayo waxaa jira dad asxaab ah oo ka dhaxayso inay isu imaadaan hadiyadaha isu keenaan waxaa ka dhaxayso gabdho asxaab ah ama wiilal ha ahaadaan waxay doonaanba ha ahaadaan ma garatay oo maxaan ku idhahdaa gabadha walaashood hadday dhibaataysana dhibka maxaan ku idhahdaa ku garab istaago wixii awoodooda ah ku garab istaago waxaa jira gabdho iscasumo oo ayagu isu yeero oo ayagu yiraahdo bal hadda maanta asxaabaan nahay meel baan maxaan ku idhahdaa ku wada cuntaynaynaaya kaalaya wada cuntaynayo wada kifaaxayo wada sheekaysanayo asxaabta iyo saaxiibada iyo dadka iyo maxaan ku idhahdaa wada socodku wanaagna waa ku jiraa xumaanina way ku jirtaa laakiin wanaagga kuwa wado aynu ka raacno kuwa xunna aynu iska dayno ma xunta wixii wanaag wado walaalayaalow ha la wado wixii xumaan wadana ha laga leexdo asxaabtuna way fiican tahay dadkuna way fiican yihiin beecada laakiin aan ku noolnahay iyo waddanka aan ku noolnahay baa waxay tahay waddan dhib badan dadkana iska horkeenayo waayo adoo daalan adoo caraysan baa iska hor imaanayo adoo iskaaga u caraysan oo gurigaagiiba ku caraysan iyo adoo daalan oo shaqo ka yimi maxaa halkaa ka soo baxay waa dab dhagax ku dhufo adduunkii baa isla gubanaya marka dulqaadkii baa yaraanayo dabeecaddii baa yaraanayso samirkii baa yaraanayo qofkii wuxuu noqonayaa qof asagaba u taagan caro socota ah qof iska xanaaqsan qof iska dudayo aadan waxba u dhimin iyo walaalayaalow waxaan kaloo qurbaha ugu imi hadal aad si u tiro si xun loo gadiyey hadal aad meel u waday oo qofka asaga isku sheegay oo uu ku leeyahay anaabad iga waday hadda adigu kaama wadin oo kuma aqaano oo kuma garanayo hadal intaad qof isdhahdeen kiiyoo 2 jibaaran 3 jibaaran 4 jibaaran aa lagu keenaa arkan kama jawaabi kariye meeshiisa ku soo celiyaan ku iri intuu ahaa kan kama jawaabi kariye intii uu ahaa bal ku soo celiya waa la macnay waa lagu sii daray adaa lagu mariyay oo qolo kaloo maray oo qolo kaloo maray oo qolo kaloo u tagay kiyo marka buuxo oo aad isleedahay tolow kani kaad adiga markii hore afkaagaba ka soo baxay ma aha oo adigu aad baqaysid baa dib lagugu soo celinayaa marka waxaan leeyahay walaalkaa haddaad hadalka qaado qofka kale walaalkiisa xitaa wax hadduu ka sheegayo u qare ha isku dirin ha u geenin habba isku dirin laakiin haddaa inta ka qaadid oo inta geysid erigaada tan laga qaadayana waxaa dhihi lahaa yaaba laga qaadin yaa lagaa qaadin adna isaad ka joogsan weyso muslimka ka joogsan weysana faraha ka qaad haba ka qaadin ba iyada laftirkeeda ha ka dhegeysan warkeedaba ha ka dhegeysan haddaa qaadin hataa oo dhegeysato waa same thing haddaa dhegeysato hataa waa same been ma aha hataa maya haddaad adigu warkiiba aad aragtay inaad ka dhegeysanaysid ood isleedahay bal qofkan waba qof farda baxa haya iska dhegeyso adigu calooshaadii afkaaga ha ku jiro oo bal adigu waxaad noqotaa kayd noqo wax celin karo oon wixii soo sii daynaynin laakiin markaa iyadii butaacday ana igu butaacday ana waa butaacay xaggee isla tagnay
fagaaraha Western iyo Lawrence meel dhahay adigoo qof weyne haddii lagu soo qabsaday ayadaa hadal sheegtay waa laga fiican yahay aad iyo aad marka waxaa idin leeyahay walaalahayga dhammaantiina iska ilaaliya kala hadalka dadka ay kala hadlaysiin qofka bini'aadinka ah inaad been ka awratiin hal eray haddii lagu dhaho 12 eray aad ka dhigaysiin iska daaya aad iyo aad saaxiibna waxaan noqdo qofka kale sirtiisa hayo saaxiibna waxaan noqdo qofka ka soo qaada inuu walaalkii yahay kaasaa saaxiib noqdo kaasaa wuxuu noqdaa saaxiibka dhabta ah ee la sheegayo laakiin mar hadduu kugu noqdo saaxiibka inuu gondaha ku qabanayo oo lugaha ku qabanayo oo karkaarada ku weydaarinayo oo gurigaaga markuu ka sii baxayo wax kaa sheegayo kaasi saaxiib ma aha inuusan ku imaanin baana la qaataa gebigiisaba uu meeshaa kaaga xirnaado marka waxaan leeyahay walaalahayga Soomaaliyeed oon ku waaninaya oon ku leeyahay walaalayaalow waa talo walaal ee qaata walaasha haddaadan wax u qabanaynin culays ha ku kordhin walaasha haddaadan wax u taraynin dhib ha ku kordhin walaasha haddaadan wax u taraynin ha kaa nabad gasho afkaada iyo adinkaada intaba ka adkow ha kaa nabad gasho waxaan leeyahay Soomaalidu meel kasta joogtana khayr Allah siiyo hooyooyinka Soomaaliyeedna dhibka Allah ka saaro aabayaasha dhibka Allah ka saaro walaalaha dhibka Allah ka saaro dhulkeena nabad Allah nooga dhigo madaxdeena Allah isu soo dumo qalbigoodana burcad Ilaahay ha isu mariyo kuwa heshiis ah oo dalkooda nabad ka dhigana Allah nooga dhiga biidbillaahi rahmaan waxaan kaloo leeyahay qurbaha gabdhaha joogana carruurta Allah u hagaajiyo kuwa xiran Allah u soo daayo kuwii dhintayna Allah u naxariisto waxaan joognaa guriga Caaisha wali waxaan ku jirnaa janalka Caaisha waa Caaisha ladan janal insha Allah biidmillaahi alkariim waxa waa Caaisha hadlayso waana soo gabagabeynayna biidmillaahi abaya soo gabagabeynaysa ayada tokada dhameystiraysa insha Allah iyo abayaalse idin sheegeen waaye waa mahadsantaa baada ay u casantay abayaalse idin sheegeen waaye maaragtay saaxiibada oo dhibaatooyinkaas ay ka taagan tahay waxaan insha Allah waxaan rajeynaynaa wax iska bedelaan dadka oo dhan bulshada dhan wax iska bedelaan janalka aan naga daawanaysaan waa janalka Caaisha ladan insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu like share and comment kulli waxa dhan waa xaqiina soo galintana waa xageena insha Allah biidmillaahi rahmaan ilaahay idinkii